gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo waraysi gaara telefishinka sahan ku siinayay ayaa si qoto dheer telefishinka faahfaahin uga siiyay shaqada hay'addaasi iyo waliba wixii u qabsoomay. waxyaabaha ugu waaweyn ee marka noo hirgalay ama noo socda waxa weeye qorshihii 5 sanadood oo dhameystirmay waa kii madaxweynaha qaranku uu launchkii sameeyay bishiina soo dhaaftay. waxa kale oo aanu ku hawlanahay marka sidii loo heli lahaa labkii National Quality Control laboratory lagu baari lahaa dawada raashinka iyo cosmeticska iyo inaanu xoojino hadii ilaahay ka dhigo xuduudaha dalka ama wixii soo galay wixii dalka baxaya saanu tayadooda u hubin lahayn aanu kor ugu qaadi lahayn. waxaan kula soo wadnaa qorshahan hadii ilaahay ka dhigo sanadka soo socda 2020 inaanu daah furno standardradii ama heertayeedkii waxyaabaha ugu muhiimsan inaanu heertayood u sameeyno hadii cuntadii ka mid tahay hadii dawadii ka mid tahay si heertayeedkaas iyo laabkii marka cabirkii la isugu dhameystiro oo wax walba loo qiimeeyo iyadoo tayada laga eegayo. marka alxamdulillah waa dadaalina. hadda waad la socotaa waxa la leeyahay dalka shidaalkii waa ka gabaabsi arinta dadka si uga hadlaa waxay leeyihiin hay'adiina dhowrista tayada ayaa xidhiidh arintaasi la xidhiidha oo inuu gabaabsigaasi yimaado ayaday ku aaneynayaan arinta maxaad ka leedahay? shidaalka dalka soo gala in muddo ah hay'adda tayadu way baadhaysay hadduu yahay shidaalkan ganacsatadu keenayaan iyo kan imaka dawladdu ay keenaysaba tayadu marnaba wax khuseeya shidaalka dalka imanaya maaha. shidaal kastoo dalka yimaada tayadiisa waa la baaraa khaasatan marka uu ka soo galo Berbera oo halkaas oo laabkii uu diyaar ku yahay shaqaalaha ay diyaar ku yihiin. marka hadiiba shidaalku isdhimo wax hay'adda tayada khuseeya maaha waa wasaaradda ganacsiga iyo kaydka haamaha shidaalka ayaa ku shuqul leh shidaalka iyo cadadka loo baahan yahay iyo maamulkiisa iyo siyaasadda guud ee shidaalka lagu maamulayo wasaaradda ganacsiga oo iyadoo la shaqeynaya ganacsatada kale ayaa kulli arinta mas'uulka ah. marka wax shidaal ah oo tayadiisu ay hooseeyo oo aanu anagu ama diidnay ama aanu celinay ama aanu aanan dalka u soo deynin ma jiro. Badri Koosar Maxamuud telefishinka sahan Hargeysa.